jaamac xuseen xasan nuuni oo ahaa filim qaadihii kooxda daacishta Soomaaliya qalalaasaha ka wada sidoo kalena ahaa mid kamid ah kuwooda u qaabilsanaa kooxda farsameynta qaraxyada ay ku dhibaateeyaan shacabka ku dhaqan gobolada Shabeellada Hoose iyo Banaadir ayaa maxkamadda darajada koowaad go'aan ka soo saartay. maxkamadda ayaa cuskatay xukunkeeda qodobo kala duwan sida uu sharaxayo gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shuute. maxkamaddu markay aragtay dambi muujinta iyo cadeymaha la hor keenay maxkamadda horteeda oo ay ka mid ahaayeen cadeymaha laga qoray markaatiyaasha qiraalka eedeysanaha laga qoray kaamiro video oo wata eedeysanaha battery 12 voltage ah oo uu doonayay eedeysanaha inuu u adeegsado qaraxa fiilooyin oo uu ugu talagalay inuu ku sameeyo qaraxa muuqaal laga duubay qaraxa uu dhigay eedeysanaha inta aanay ciidamada amnigu qarxin ka hor muuqaalo kale oo laga helay kaamiro video oo uu watay eedeysanaha oo muujinaya in eedeysanaha uu xiriir la lahaa kooxda Daacish. maxkamaddu markii ay dhageysatay doodii qareenka oo nuxurkeedu ahaa in eedeysanaha loo naxariisto maadaama lagu soo qabtay ficilkiisii ugu horeeyay oo aan waxyeelo geysan. sidaa darteed maxkamadda waxa uu cadaatay in eedeysane Jaamac Xuseen Xasan uu yahay dambiile galay dambiga lagu soo oogay waxayna maxkamaddu ku xukuntay xabsi daa'im. ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxa u furan racfaan. eedeysanaha ayaa ku biiray kooxda Daacish kadib markii ay isqabteen kooxda Al-Shabaab uu hore uga tirsanaa waxaana celcelisahan ku soo qaatay kooxdaasi in ka badan 5 sano. gobolada bari ee dhulka Puntland gaar ahaan Qandala ayuu ka soo dagaalamay balse mar dambe ay kooxdu u soo wakiilatay dhibaateynta shacabka ku dhaqan Shabeellaha Hoose iyo Banaadir ayaa isagoo ku jira dhikrada shacabka waliba ku mashquulsan qarxinta miina ay ku aaseen wadada dhinaceeda ayaa waxa ay ciidamada amniga ka soo qabteen halka loo yaqaan boodboodka degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose. Cabduqaadir Ciise, warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho.